have you fed the cat? The cat bisadii waa bisadaan isla ognahay bisada have you miyaad fed cuntaysiisay ereyga fed waxay ka timid waa the past form of feed bastigeeda waa fed ereygan feed wuxuu ka imid ereygan food waa cunto cunto feed cuntaysiin food cunto feed cuntaysiin fed cuntaysiiyey have you fed the cat bisada ma cuntaysiisay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your brother Khalid Yunus Usman and you are watching Qaybti English Updates. Today's lesson cashirka maanta aynu dhiganaynay waa weli sii socdo cashirkii aynu bilownay xiisadii hore ee ahaa articleka the marka aynu weedhooyinka gelinayno. The waa an article aynu u isticmaalayno for things waxyaabaha that are specific gaarka ama khaaska ah shay aynu isla ognahay labadayada wada hadlayna marka aan rabno in aynu muujino waxaan isticmaalaynaa articleka the weedhooyinkan aan isla eegno weedha u horeysa he threw the ball ball waa kubad the ball waa kubadda aynu isla ognay ama aan kusoo wada ciyaarnay ama aan soo wada iibsanay ama kubadda keliya aynu haysanaba ball waa kubad the ball kubadda he isagu threw uu tuuray threw waa the past form of throw tuurid wax aad tuurto a marker waa marker waan tuuray throw tuurid wax aad tuurto ayaa throw la yidhaha gacantan ku haya haddaan sii daayana drop waxaan gacanta ku haya ayaan sii daaya waa sii dayn drop throw waa tuurid waxaan sii daayay markaan kor u qaadayana pick up waa kor u qaadid throw waa tuurid drop waa sii dayn threw uu tuuray he threw isagaa tuuray the ball kubadda he threw the ball kubadduu tuuray isagu kubadda ayuu tuuray come into the room qolka the room come into the room qolka soo gal come into the room qolka soo gal fasal ka bax markaad rabto inaad tidhaahna ama waxaad oran kartaa leave the room qolka ka bax get out of the room qolka ka bax come into soo gal come into the room qolka soo gal the baby ilmaha yari baby waa ilmo yar ilmuhu markuu uu yar yahay marxaladooyin buu soo maraa magacda loogu yeedho mar uu baby yahay mar waa infant mar waa baby mar waa toddler mar waa kid marna waa qadu marxaladooyin buu soo maraa isla eegi doonaa insha Allah xiisado kale aynu ku eegi doonaa the baby ilmaha yar was naked wuu qaawanaa dhar ma xidhnayn the baby was naked ilmaha yar wuu qaawanaa dhar ma xidhnayn baby hadduu gabadh yahay baby girl baa leedahay haddii wiil yahay baby boy waa ilmo yar oo wiila ilmo yar oo gabadha the baby boy ilmaha yar inanka yari was naked uu qaawanaa dhar ma xidhnayn we swam in the sea waa badda we anagu swam waa the past form of swim waa badaalasho swam waan badaalanay we swam in the sea badda ayaynu ku dhex dabaalanay we inagu swam ku dhex dabaalanay in the sea badda anigu stared at
stared at the man. I stared at the man. Waan eegay ninka. Eegid marka lagu leeyahay mid waa look. Isha dacnada waxyaabo kale eegaya ayaad isha la heshay. Look. Stared at. Look. Waa eegid. Midi waa watch. Waa daawasho. Saad hadda ii daawanayso oo kale. On purpose ayaad u geysatay channelka Qaybti English Updates. Anaa kaaga soo baxay. Waad i daawanaysaa on purpose. Look waa eegid. Watch waa daawasho. Stared atna waa qofka oo aad eegto without blinking. Adoon indhaha isku qaban aad eegto. Hadafkaada u eegayso wuu kala duwanaan karaa. Maybe you're looking at this person, qofka waxaad u eegaysaa, maybe waad ku dul fikiraysaa. Yani you're thinking about something else, laakiin qofkii waad eegaysaa, indhahana isuma qabanaysid. Ama qofkan ayaad dhibsanaysaa oo waad ku dul fikiraysaa si aad u dhib u gaarsiin lahayd. Amaba qofkana kugu cusub oo wejigiisa, designka wejigiisa ayaad duubaysaa si aad u xasuusato oo aanad u ilaawin. Ama asbaabo kale ayuu noqon karaa. Stare waxay ka dhigan tahay waa qofka aad eegtid, looking at the person without blinking. Oodana eegidaas aad joogtayso, yani in muddo ay sii socoto for a while. Looking at a person for a while without blinking. Markaad saa u eegto, waa stare. I stared at the man. Ninka waan eegay. Yani indhahan ku adkeeyo si fiican baan u eegay. Ali is in the house. Ali guriga ayuu ku jiraa. Ali is in the house. Ali guriga ayuu ku jiraa. In the wuu ku dhex jiraa gudihiisa. Ali is in the house. Ali is in the car. Ali is in the class. Ali is in the waxaad doontaad xaggan ka dhigan. Ali na dawada bedeli kartaa. Halimo is in the class. Fadumo is in the class. Asha is in the class. Anything that is in somewhere, subject kaad ka dhigi, objectana dacdaha ka dhigan ayaad bedelinaysaa. Ali is in the house. Have you fed the cat? The cat, bisadi. Waa bisada isla ognahay. Bisada, have you miyaad fed cuntay siisay? Erayga fed waxay ka timid waa the past form of feed. Feed bastigeeda waa fed. Eraygan feed wuxuu ka imid eraygan food. Food waa cunto. Food cunto. Feed cuntay siin. Food cunto. Feed cuntay siin. Fed cuntay siiyey. Have you fed the cat? Bisada ma cuntay siisay? Bisada ma siisay cunto. Bisada ma cuntay siisay? Fed oo cuntay siin. Anigu rejected. I rejected the offer. I rejected the offer. Offer waa wax lagu soo bandhigay. Tusaale ahaan alaab baynu kala iibsanaynaa. Alaabta aan kala iibsanayno waxaad tiri wuxuu yacniga ka baxayaa shaygu $20. $20 ayaad ku iibinaysaa ka soo qaad. Ana waan ka iibsanayaa. Jeebka waxaan ku wataa $15. Waxaan ku yidhi $15 iga sii. Anu maxaan offerka aan ku siinay waa maxay? Offerka aan ku siinay ama waxaan kuu soo bandhigayo ama aan ku leeyahay qaado waa $15 waa offer. Adiguna qofkii iibinay haddii aad tahay offerka aan ku siiyey maxaad samayn kartaa? Haddii uu makhaarish kugu yahay $15 baad u qaada. Hadduuna kugu ahayna waad iska diidi. Reject waa diidid. I rejected waan diiday the offer waxa la ii soo bandhigay. Ama office baad ka wada shaqaynaysaan, office-kii bay meel ka banaanaatay. Meesha ka banaanaatay baa lagu yiri mishaarkaas lagugu siinay kaalay ka shaqee. Haddii aad yeesho the opposite of reject maxay noqonaysaa? Accept. I past formigeeda yidii baan ku daraynaa. I accepted the offer. Wixii la ii soo bandhigay inaan qabto waan aqbalay, waan qaatay, waan yeelay wey. Rejected haddaan idhaahna waan ka soo horjeestay ama waan iska diiday. I rejected waan diiday the offer. Wixii la ii soo bandhigay. Casharkayaga maanta intaas ayuu nagu eegyahay. Insha Allah la soco xiisadaha kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.